السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القروح بدن كسر هذا الفيديو عسو وبرنامج كي دقالها أما سيده wax ku dhaqaalaysan kartaa hooyada gabar abaaya waxayna soo weydiisay biilkeyga waxa waaye dhahday 250 sidee cun isku dheelitiray ilmaha u siin karaa waxna meel uga dhigan kartaa abaayo maanta insha Allah mawduuceeda iska leh insha Allah videogan hadii aragto insha Allah inay ka faa'iido doontaan rajeynaya in badan gurigeeda wax badan insha Allah iska bedeli doono muuqaalka inoo like gareey inoo share gareey hadii aad ka heshaan videoda sidaan oo kale oo dhaqaalaha insha Allah weekly hal soo sameyn doona ama hooyooyinka markaas codsiga ama jadwalka in loo sameeyo jecel jadwalka oo guriga insha Allah waan ila sixi doona soo dhawaada koobkaaga shaaha ama cabitaankaaga soo qaado mar walba buug iyo qalin ina isku wadatid ama xisaab ina wixii ku soo galo ay xisaabsid bisha dameeqa ku soo gasho abaaya teetalkeeda insha Allah hore sidaan igu sheegay 250 12 qofoodana ay dhahday ma sha Allah tabaaraka rahmaan Allah ku barakeeyo abaaya familkaaga mar walba wixii ku soo galo waa ina qoondeyn kartaa xisaabin kartaa bisha markay ku soo galaan lacagta ay ku soo gasho waxa loo qeybiyaa afartan qodob hadii aad sameysid insha Allah biidnaail kariim 6 bilood kadib waxa noqon doontaa hooyo meel wax u dhacay hooyo wax haysataa noqon doontaa insha Allah mar walba muhiim ay ku tahay qaasatan marka caruur haysatid ina keed dhow iyo keed fog labadaba aan leedahay muhiim waaye qofkan ku shaqeynayo ama xaajiga shaqadu ka tagi karaa wuu xanuunsan karaa xaalad emergency dhici karto waxa la rabaa hooyada inay meel wax kala soo bixi karto muhiim wax walba loo sii dabka ina saarna sax maaha marka buugaaga soo qaado qalinkaaga soo qaado xisaabta muhiim ay ku tahay abaaya marka insha Allah xisaabteeda gali doona waxa soo gasho 250 soddon beri bisha lagu sheegay waa soddon beri hadii alla si kala qaado waa 4 week maxaa u baahanaa ilmahayga sida cunno isku dheelitiran aan u siiyo anigana meel waxa u dhigto biilkan iyo wareerkan aaga baxo marka ugu horeys waxa ugu horeey asimiinaysa waxay tahay inaa hota wixii deen la dhahay aad iska dhaaftid ko bishi markay saas ee lacag kugu soo dhacdana ina adeega bille aad soo adeegatid sida raashinko dhan ina soo dhigatid waxyaabaha qalno dhan guriga ina soo dhigatid raashinko kale inta ku adeegatid adiga oo laakiin $80 inay ka badanin waxa ku soo adeeganaysid cilciliskaaga lacagta markay ku soo galayso waxa loo qeybiyaa 3 qaybta ugu horeysa waxa 55 waxyaabaha u baahan tahay cunada cunaysid korontada biyaha wax walba markaas noloshaada 55 inay ka badanaa la rabaa 45 kalena insha Allah sida u qaybinayna waa arki doontiin marka abaayo talkaan hadii ay isticmaashay am totalka aan ku dajinayo insha Allah waa guuleysan doontaa 80 oo kale waxa ka dhigta raashinka $80 inuu kaaga badanin ina ka yareysid maanaha ka badan $80 ku soo adeegtay 60 waxa ku soo adeeganaysaa khudaarta oo bilaa isbuucli hada isbuuci hal maalin bixi kartay adiga waa fursadaada laakiin waxa fiican labada week hal mar ina suuq aadid sida ila baawura raacaysa ama moota raacaysa soo ma sida safe u dhahatid ina weeki aadid laba mar insha Allah weeki marka bisha soo adeeganaysa isbuucle ina u soo adeegatid ama labada isbuuc hal maalin soo khudaarta marka sida soo dhigatid waxay ka caawinaysaa ilmahaaga inay ku helaan cabitaanaad ma sha Allah tabarakallah sida khudaarta ina hor u soo iibsatid wixii raqiis ah markaas mar walbana suuqa weyn aad oo lacag kaaga soo haraysa adig suuqyada yarka mar walba ka adeegan meesha degan tahay suuqi markaas alla leeyahay lacag way kaaga soo hari kartaa isleeda ina ka soo adeegatid isku day marka khudaarta soo adeeganaysid ina ilmaha cambuhu kale ugu soo dartid insha Allah qaraha saytuunka qumbaha wixii markaas raqiis ah $1 $2 insha Allah ina ugu soo dhaxbixisid oo u soo adeegatid khudaarta cabitaanka ilmaha muhiim u yahay bisho kale fiimtada soo dhigi jirto $2 bar oo 2 week ama hal isbuuc marka isticmaal ka dhamaa jirto iska dhaaf oo ma fiicna ilmahana insha Allah khudaartaada siiso mar walba insha Allah bishi 2 mar aad hadii oo kugu culus tahana isbuuci hal maalin aad insha Allah bishi waa 4 week $15 ku soo adeego 15 kaas waxa kaaga soo dhaxbaxayo ilmaha cabitaanka siisa mar walbana insha Allah $20 ilmaha meel u dhig oo fruitka ah marka adeega doonaysid $5 liimaantooda iyo tufaaxooda iyo yogurtkooda ugu soo iibi insha Allah ma sha Allah tabarakallah ku noqon doona cunno isku dheelitiran gurigaaga waa ka karinaysa dalagana waxa sameyn kartaa ina $10 bishi marka soo adeegaysid aad ku soo dartid
insha Allah sida samee dalaga waxa fiican in raashinka lagu soo darsado marka 8 raashinka oo loo baahan yahay marka ku soo gadid $10 dalag ina ku soo gadid insha Allah 20 fruit ina meel u dhigtid hilibko kale $45 yoomi $1 ibar ina qoondeysid marka insha Allah sidaas marka sameeysid wuxuu u baahan yahay cunuga isbuuci ina maraq u sameeysid ilmaha mar waxa u sameyn kartaa maraq fudud sida qudaarta ku taalo kala isku dardareysa $1 oo kun biyo ku karinaysa maraq marka karis kadib cunug walba xogaa maraq soo shiidaysa maraq xogaa baaquli cunug walba u shubaysa xabadiisa ukunta u saaraysa ma sha Allah tabarakallah ilmaan waxay ku qaadanayaan cunno isku dheelitiran adiga dhan gurigaaga uu qaboobi doonaa adeeg bisha soo dhiga abay baroobe insha Allah bisha way hor leedahay maanta laba waay insha Allah inaad videogan ka soo daahina rajeenayo oo waqtiga ugu baahnaa aan ku soo sameeyay qaaliyay jadwalkan insha Allah samee waxa arki doontaa kuna inay meel wax ku dhacaan 250 ka marka sas biil kugu soo dhaco $30 meel gali aad taabaneenin keedka foga la dhahaa insha Allah meel gali aad taabanin oo aad ogeen adii ma balihidbo $10 waxa sameynaysaa keedka soke sida inuu wax ka jabo cunuga xanuunsado ama xaalad ama family ahaan inuu wax xaalad ku qabsato iskaaga xalisid $10 keedka dhawaa dhiganaysaa meeshas maxaa dhigatay $40 ama dhigatay maxaa haysataa 210 waxa ku sameyn kartaa guriga asaasiga wax loo baahan yahay dhan ku sameyn kartaa insha Allah qudaarta 60 inay kaaga badanin hilibka 45 80 inuu ku noqdo insha Allah raashinkaaga waliba wax ka sii reebi kartid insha Allah isku day maraqana muhiim u yahay wiigi hal mar ina u sameeyay mar qudaar u sameey mar calooleeda raqiis waay $2 kale ama madax ariga ama waxa u sameyn kartaa kiilo hilib jimc ka jimcina u karisid 4 jimco ina u karista ama lama jimco jimcadana u karine hal jimca jooga jimcada kale u karine bisho dhan laba mar ina u karis muhiim u yahay bil waxa u karin kartaa maraq calooleeda week kalena waxa u karin kartaa hilib ma sha Allah tabarakallah qudaarta cabitaanaadka ilmaha ay cabaayeen intay kaaga soo dhaxbaxayaan adeeg aad soo adeeganaysid qudaarta la soo dhiganayo guriga waxay noqonaysaa qaboob adiga dhan waa helaysaa ilmahaadan waxay ku cunayaan qudaar fara badan insha Allah haday yoomi $2 $3 maamada dariska ka soo adeegatid maamadaas ayada dana ugu jirto ma sha Allah wixii ka raadinaysa ilmiga korine laakiin adiga dan kugu ma jirto mar walba hooyo hataa tahay oo caruur haysatid qoondeen qorsheen iyo wax walba ina qortid maanta dhan cunug markuu break ku imaado 5 sent u tuur midkaan $1 u tuur midkaan $1 u tuur qofkaan $2 bar u gali saas lacagta kaaga dhama qorshay bishi wixii aad bixinaysid waa inay ku qoran yihiin insha Allah sidaas samee abay insha Allah ina ku faa'iido doontaan rajeenaya insha Allah hadii aad ka heshaa mawduuca waan soo badin doonaa muuqaalka insha Allah like gareeya share gareeya waa barnaamijkii dhaqaalaha marka abay insha Allah in yarba Allah ka dhigay inay wax ka faa'iido rajeenaya wax walba oo ku soo galay in aqoondeysid 55% nolosha asaasiga 45 ku soo hartay $5 inay sadaqa ku noqoto ama wax inay sadaqaysid muhiim waxyaabaha barakeeya waa insha Allah $10 insha Allah 100% ina 10 meel ka dhigatid hadii $1,000 ay ku soo galaysa bishana ina ka dhigatid $100 muhiim ku tahay 10% marka 20 maadaama meel $30 meel aad dhiganay 10 keed soka ka dhiganay ama waxa ka go'ayo ama waxa ka dhamaanayo ama qof marti oo kala ku iimaan karto 10kaas waxa la rabaa inaad isku badbaadisid oo emergency wixii dhaco dhan aad ku xalisid 30kaas sida u taabanin 30kaas hadii aad ka maarmi weyso Allah xaalad emergency dhacday laga ma maarmaan wala markaas 30kaas soo bixinaysa 220kaasna waxay ku tahay 10kan ilaalin waaye إن شاء الله لو بقول إطبعاً نلاش هذا إنها كفري سيد دلك واسو يبين كرتات هالمر إنها سو يبسطيد راشين كصدا كله هليبك خضارته إنها أسود يجتيد أسبوع لإنها أسود يجتيد أم لو أسبوع مرسوق إنها كدونتيد إن شاء الله أبا إنها وحكي في إدارة جينا يعني إن شاء الله المهاجن يكون قادم دونا عنس كده اللي ترى خضار فرب بدن المهاد واسين كرتا لكن قرمي سين كرتا مركا كسو أديغتيد سوقيد واوين مروال بنا ماشي كوشين كاغا سو هرايو إن شاء الله كأديغ قبلين سو مالي بحي قاني لا شن سنت ماشي او هراي سحيتا ميل كوشين وهراي كوشين لعاق ميا على كوشين لعاق وكون كدر لابكم واي مركا هبليو قروح بي إن شاء الله إنا اوغاتان دقالها مهم واي والبو هدي $20 ميل أديغتيد لحد بلود محيكون قنيسا $100 إلا $20
cunugaaga ku arad bixin kartaa haddii markaas arad bax uu ka yahay adiga waxaa ku soo gadan kartaa garaam dahab laba garaan markaas wuxuu dahabka uu maraayo mar walba keed bil walba insha Allah haddii ilmaha dhar aad u soo iibisad insha Allah ka dhaaf bil walba in ilmaha in dhar loo soo iibiyo mawduuca dharka iyo qaabkaasna insha Allah mar kale ka hadli doonaa abaa insha Allah inay ka faa'iido rajeynaya insha Allah sidaas u qoondeyso ilmahaaga dalaga siisan kartaa habeenka cashada ku ahaato dalag inaan sameysid quraacdan insha Allah mar walba khudaar isku dheeli tiran ilmaha inaan siisid yoomi insha Allah intaas inaa ku soo adeegatid mar koosta u karisid mar dalac bilaash iyo kun isku dartid ilmaha mar bukure inaa u karisid ma sha Allah tabarakallah khudaarta muhiim waa ilmaha in la siiyo hadii suuq weyn aad ka soo adeegatid kama walwali doontid quraac iyo qado iyo cashaba intaba mar walba insha Allah adeegaada adig kala qaybso adig mar walba gacanta ku hay gabar yar oo kale hadii ku joogto insha Allah wax u qoonday ilmaha yaraanta la baraa inay wax qoondeeyaan hableeyo quruxda badan cunug yaraanta marka qoondeynta aad bartid biri ma wareerayo gabadhan reer ay yeelanaysaa wiilkan reer oo yeelanaya qoondeynta muhiim waa insha Allah ilmaha in la baro inay meel wax dhigtaan cunugaada yoomi 2,000 oo kala siisaa break inoo maalin 2,000 oo isticmaalin oo maalin meel wax ka dhigan karaa insha Allah markii aadima hay aad dhahdo kale inuu asiga 2,000 ama 3,000 hooy aniga haysto inuu ku dhaho inuu isbadbaadiyo mar walba insha Allah sida sameeyo hableeyo quruxda badan keedka waa muhiim mar walba hooyada inay meel wax dhigato keed fog iyo keed dhow keedka dhow wuxuu ka caawinayaa cunugoo kale ka xanuunsaday cunugay kabka go'day cunuga emergency oo kale oo dugsiyo aad waa la soo dhaawacay inta xaajigu wici lahayd jeebkaaga insha Allah iska xali haddii hadhood ay ku soo dhacdana keedkaada ku cisho mar walba hooyo safe leh insha Allah noqo oo wax seefatay mar walba muhiim ku tahay buugaaga qalinkaaga inaad soo qaadatid insha Allah wax ay xisaabisid waxa ku soo galo $100 haday yihiin bishi ka dhigo $10 meel waxa ku soo gala 200 haday yihiin ka dhiga bishi 20 deena Soomaalida 90% waxay ku dhiban yihiin biilka inoo ku dhiba maaha waa ina aad ku raaxaysataa oo bir raasmaal ah ka sameeysan kartaa mar walba insha Allah biilka wax joogto ah oo maalinba ku soo galo 30 bari si xisaab inuu kugu soo galo si xisaabna oo kaaga baxo muhiim waa insha Allah waxa xisaabi waxa xisaabis wax badan insha Allah kaaga soo dhax bixi doono hableey quruxda badan muuqaalka ina ka hesheena rajeynaya insha Allah abaayin ee ka faa'iido doonto gurigeedana ilmaheeda cunno isku dheeli tiran ee siisa doonto insha Allah biidnal kareem maraq oo heli doonaan fruit oo heli doonaan sidee abaay cunno isku dheeli tiran oo siin karaa soo dhahday 250 caruura haysta marka ma sha Allah tabarakallah abaay ilaaha ku barakeeyo buugaaga qalinkaaga insha Allah soo qaado xisaabi mar walba muhiim ku tahay bishina $20 meel ha ku dhacdo 10na keedka dhow ka dhigo insha Allah sidii waxyaabaha emergency ga iskaga xalisid 220 ha ku ahaato nolol maalmeedkaada intaas ka badanin hadii khudaar ay tahay hadii raashin ay tahay had ilmahaaga xataa caanaha booraha meesha soo iibi lahayd waxa ku fiican isbuuci ina caana geel insha Allah hada waxa la sameeyaa baadiyaha laga dalbadaa $5 waa caag saddex laha isbuucina isticmaashid ma sha Allah taa bish wuxuu ku soo fiirsanay $20 ilmahaadana caana faa'iido la siisay familkaada hadii badan yihiin cunugi 30 ml ku filan hableeyo quruxda caana fara badan cunug in la sii lama baan mar cunugaasana haduu gaaro waxa ku filan habeenkii ilaa maalintii hal mar habeenkii qaasatan muhiim u ah ina habeenkii 30 ml ala cunug 30 ml ina siisatid ma sha Allah tabarakallah way ugu filan tahay caana boorana way ugu wanaagsan tahay mar walba insha Allah waxyaabaha dalaga isticmaal gurigaaga dalaga habeenkii kari canjeelada ilmaha u sameey mar walba adeegaada bisha ku soo dar inuu dalag ku jiro muuqaalka ilaa garay intaan hada soo gartaa ka mahad celinaa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh